حسبيغا برواقي حكومة بلد كان جوجنو إلو بقرة maamulka bayraxtiray ciida ballantiyo heshiiskii u galay muunan baalmarine xisbigii dalka uu soo baxo baariba tahay birmadiyo waxaad noo tihiin baawar iyo xooge boqolaal mashruuc muglad bilo dhamayseene jidad baaxad liyo laamiyaal bilicda aad yaabto jidad baaxad liyo laamiyaal bilicda aad yaabto oo midabyo badan loo iftiin wada bildhamaya baabuurtu meel ay martiyo bunda lagu reeyay oo baahi loo qabay ayaad biro ku taagteen waano bishaaro xisbigan lagu badhaadhowye sida uu dalkeen yahay haddaan yara daraasayey deegaankeense gaarnimo haddaan dood ku faalanqayno daliilka darsigaygan maqal maansadaan kugu daadihiine deegaankii kadaan iyo kadaan dirsay waadartiye nabadgeliyadii daahirtaa laysla soo degaye dadkeennii maqnaan jiray wakaa yimi dalkiisiiye dalxiiskama dhammaadiyo baryahan qayba daawadaaye eegana dadkayga waxbaan idin dareensiine dowlad baa inoo dhalatay iyo maamul deeq badane durduradii xidhnaa waa la furay iyo dariiqiye oo shacabkii hilmada duugayaa maanta diirsadaye oo waa la doogdhabay khalqigii hoonku daashaday kolkaasay dadweynii dhammaan horumar dooneen oo waa loo dalka horumarkiisii ayaa loo dabaaldegay xisbigii samaantow xisbigii sinaantow siraadkii midnimadow surankii waxqabadkow nabadoo sarraysiyo saxan saxa barwaaqaad ku safaysan tahay oo sumadaad waano sabab baad u tahay guul saldhig baad u tahay sees baad u tahay ciid sahay baad u tahay qoom mana guurti sahanley si kastoo la eegaba waadna saacidaayo xisbi samafalaad Soomaalida deegaankiyo bulshadana si guud baan ugu saafayaayo waxaan saaka leeyahay waa barwaaqo socotee u garaaca sacabko soo dhaweeya waa nuur saatir noogu deeqe soo eeg shabeelley seeraha barwaaqada mashaariicda socotay sabab loo dalxiistago sabiibkii cambaha iyo saytuun bislaadiyo xabxabka iyo seetada inta soor la dhuunyado lagu simay baraara bisineebaheen iyo barakada rasuulkiyo awliyada bilaadkiyo baariyaasha samafalaan ku bilaabay maansada waxaan beydka uga furay ku barbaashay maansada salaam baaxad loo weyn boqoran oo sharfoon oo deeqda ruuxda bilan oo qalbiyada ku biqisho maskaxaha ku baahdo ka ahaatay beerkiyo bartamaha qalbiga oo gobta lagu bariidee baada xarafka maansada barbaar yahay gudoomo baariyaasha mudan ee barta gogasha fidiyow badankeed gudoomo booskuma ekaano badweeyaan gurino baraka la socotee xisbigani barwaaqiyo bulsho yahay gudoomo beydkayga maansada waxaan baadad uga dhigay sumad aanba ayno kaga beegan qoortiyo dagta baalaheedo suugaanta bilo oo dhaqanka u baahane bari hore nin baa yiri maahmaahi been male صح توس بين بلاباننا abaalmarintii xubnihii guuleystayaashii tartanka xubnahan oo laba qaybood kala qaybta gabayga u tartamaysay iyo qayb badda jiiftada ku tartamaysay toos baan u bilaabanayna waxaan horeysiin doonaa xubnaha ku tartamayay qaybta badda jiiftada waxaan u yeedhin doonaa xubinka ku guuleystay kaalinta saddexaad ee jiiftada hal abuur Maxamed Shugri Alfa هل أبو محمد شجري ألفا هل أبو محمد شجري ألفا يا حقوق الاستيك على تصدحات ترتن كسوقيان كديجان كجارهام بطل جيفتلا محمد شجري ألفا وحقوق الاستيك على تصدحات ترتن كسوقيان كديجان كجارهام بطل جيفتلا آد بومباسين هاي آد نروح همبلينا همبليو بانلنا kaalinta labaad ee badda jiiftada waxa ku guuleystay
kaalinta labaad ee badda jiiftada waxaa ku guulaystay hal abuur Nasri Ali Sulub hal abuur Nasir Ali Sulub hal abuur Nasir Ali Sulub hal abuur Nasir Ali Sulub wuxuu ku guulaystay kaalinta labaad ee suugaanyahanka deegaanka gaar ahaan badda jiiftada hal abuur Nasir Ali Sulub hambaliyo baan leenahay waxaan yoori doonaa kaalinta saddexaad xubinka ku guulaystay kaalinta saddexaad tartanka suugaanyahanka deegaanka ee kaalinta koowaad aan dhaahdo xubinka ku guulaystay kaalinta koowaad ee tartanka suugaanyahanka deegaanka gaar ahaan badda jiiftada ama maansada loo yaqaano hal abuur Dheeman Cabdi Sheekh hal abuur Dheeman Cabdi Sheekh hal abuur Dheeman Cabdi Sheekh waxay ku guulaysatay kaalinta koowaad ee tartanka suugaanyahanka deegaanka gaar ahaan badda jiiftada ama maansada hal abuur Dheeman Cabdi Sheekh hambaliyo baan leenahay aad baan maasan xubnaha ku tartamayay badda jiiftada kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad iyo xubnaha kale ku soo dhaweeyay hambaliyo baan leenahay waxaanu aad uga xunnahay oo ka iloono shahaado qalalan baan siinay kharashkii aan ugu talagalnay xubnaha ayaanu ku dhawaaqin xubnihi iyagoo raaliya hal mar aan noo soo noqdaan saddexdii qof hal abuur Dheeman soo horeyso hal abuur Dheeman hal abuur Dheeman hal abuur Dheeman هو صحيح انه كده ناصر علي سلوب ناصر علي سلوب حل ابو الفا وناصر عنه خلاص ها صدق انا ضوي هي qaybtaas waxay ahayd hal abuuradii ku tartamayay ee badda jiiftada ama maansada waxaan bilaabi doonaa hal abuurkii ku guulaystay ee tartanka gabayaaga deegaanka gabaygu waxaan ognahay inuu yahay boqorka maansada inuu yahay godka ugu adag ee suugaanta laga tiriyo waxaa jira xubno intay guulaysteen qalinjabiyaalna noqon doona dib baan ka yeeri doonaa laakiin waxaan yeeri doonaa qofka kaalinta saddexaad ku guulaystay tartanka gabayaaga deegaanka hal abuur Axmed Naasir Cabdi Mawlid hal abuur Axmed Naasir Cabdi Mawlid kaalinta saddexaad hal abuur Axmed Naasir Cabdi Mawlid wuxuu ku guulaystay kaalinta saddexaad ee tartanka gabayaaga deegaanka hal abuur Axmed Naasir Cabdi Mawlid wuxuu ku guulaystay tartanka saddexaad kaalinta saddexaad ee tartanka gabayaaga deegaanka hambaliyo baan leenahay waxaan yeeri doonaa hal abuur Khadar Umar Muuse hal abuur Khadar Umar Muuse oo ku guulaystay kaalinta labaad ee tartanka gabayaaga deegaanka hal abuur Khadar Umar Muuse oo ku guulaystay kaalinta labaad ee tartanka gabayaaga deegaanka hambaliyo baan leenahay waxaan yeeri doonaa xubin ku guulaystay kaalinta koowaad ee tartanka gabayaaga deegaanka waa hal abuur Abwaan Axmed Good Shaqlane Abwaan Axmed Good Shaqlane Abwaan Axmed Good Shaqlane wuxuu ku guulaystay kaalinta koowaad ee tartanka gabayaaga deegaanka waa markii saddexaad uu kaalmaha hore soo galay laba goor wuxuu ku guulaystay kaalinta koowaad sanadkan iyo sanadkii hore kii ka sii horeeyay kaalinta labaad buu galay waxa sababtan Abwaan ugu yeerayo uu qalin jabiyay isagu waa qalin jabiye toos maanta uu qalin jabiyay xubnahaas waxa ay xubnii ku guulaystay kaalmaha hore ka galay ee tartankii gabayaaga deegaanka waxaan yeeri doonaa xubnaha qalin jabiyaasha ah oo siin doono shahaadooyinka ku qalin jabiyeen qortema hal abuur Axmed Good Shaqlane hal abuur oran maayo hadda wixii ka dambeeyay Abwaan baan ugu yeeraynaa 3 sano isku xigta ayuu ku guulaystay tartanka gabayaaga deegaanka laba jeer wuxuu kala kaalinta koowaad marna wuxuu kala kaalinta labaad toos uga qalin jabinaya maanta tartanka gabayaaga deegaanka dib noogma soo noqon doona hadduu nagu soo noqdaan ama garsoor buu noqon doonaa ama hawlaha kale ee bulshada ku bannaan buu qaban doonaa haddii la yiraahdo
hambalyo baan leenahay abwaan shaqlane wax kale oo qalin jabin isna u yeeri doonaa abwaan Axmed Naasir Cabdi Mawlid oo isna 3 sano xigta ku guuleystay kaalmaha hore ee tartanka gabayaaga deegaanka maanta waxa ka dambeeya abwaanimo buuxdan oo aqoonsanay waan qaadanay ducadana waan ugu darnay insha Allah waxa isku soo noqonaa wax noqon wixii kale ku banaan oo bulshada waan siinaa wanaya aad u maasan yihiin hal abuurka iyo tartamayaasha iyo ka soo qaybgalayaasha iyo bahda saxaafadda